اوكي السلام عليكم قرابو كوسو دوادا فيديوغينان عصب قيبت سدحات اتحناها basic smart money strategy قيبتهم حروينا نكون معنايو وامحي تشوك اوكي سو إلى هذا وحان سو قادناي maxaa la dhahaa iswiin haagi iswiin loogi markii la jibiyo inuu boss dhacayo continuation ah laakiin markuu lacagta reversal sameynaysa maxaan ka raadinaynaa si ula dhaqmeena choga meeshas way meesha uu soo galay so markii aan dhahno lacagta for example saana ayuu ku soo jirtay waxay sameysay chog waxay sameysay maxaa la dhahaa chog kale markii haygan joogtay ayaa waxay sameysay lacagta waxaan dhahan waxay rabtay inay sameyso reversal okay si ay lacagta reversal u sameyso waa inuu jiraa in this case haddaan 4 hour ku dhex jirno inuu jiraa weeyaan higher high maxaa la dhahay la qaado okay so ruleka koowaad waa inuu dhaca chok aan dhahno oo dhinaca kore ah ani waxaan ugu cali liquidity qof wuxuu ku leeyahay chok oo dhinaca kale ah qof wuxuu in this case upper chok ama haduu salihana maybe lower chok qaar wuxuu ku leeyihiin boss qaar wuxuu ku leeyihiin mini boss qof ma xatba ma uu kula baxaya balse wax kale ma ahayn ko liquidity dan logan oo higher logan lacagta sameysay in la qaado markuu suuqa qaado maxaa la dhahay logas high-gaas ito okay oo meeshaan aan dhahno liquidity ayaa la qaaday marka maxaa noo muuqda waxaa noo muuqda lacagtaanito in ay higher high la qaaday bas higher low lama qaadin so aniga ilaa waxaan joog u wici karaa waxaan sugay waxa weeye lacagtan inay soo noqoto oo ay jibiso higher low okay marka jibiso higher low kaliya ayaan aniga waxaan u dhiganayaa maxaa la dhahaa waxaan u dhiganayaa order pending order limit order or in this case sell limit haduu buy yahayna low limit or the same thing suuqa inay ka tusi doona insha Allah markay saas sameysay lacagta waxaan sugay inay soo noqoto oo ay qaado order ka soo qaadato ee soo raacdo anigana marka meeshan ayaan ka soo gelayaa waxaan soo qaadanayaa selka ilaa ay marka sida demandiga aan ugu talagalo isleeyahay waa ilaa intay imanaysa ayaan soo qaadanayaa si ay u timaado meeshaas okay marka this one waxa waaye shock or lower time frame ka dhacayo ani si aan u dhaho okay 4 hour ka jahadiisa inuu bedelna in kale ma ogi jahada 4 hour ka ma ogi inuu bedelna laakiin waxaan ogahay impulsive key intana way ka dhacdaa ad ima sawirna intana sidaas oo kale inta sidaas so meel walba suuqan ka noqonayo 15 minute choke ba ka dhacayo oo ah swing high markii la qaado swing low cusub markuu sameysmay swing high kale markuu laga soo kala fireenay and so on waxa sameysmay choke 15 minute laakiin 4 hour ka chogiisa oo ah time frame ka markaas in this case ani jahadeeda ku aan ku hogaaminayo waxaan sugayaa in lowga la qaado marka adiga waxaan oo dhan waa laga inaa 100 bips tahay 100 bips ma cafinayso so 15 minute choga wuxuu ku taray waxa waaye lower time frame ka inaad tagtid oo ka soo qaadatid oo maxaa la dhahaa aad ka soo shaqeysatid ilaa iyo la imanayo maxaa la dhahaa meesha markaas adiga aad isleedahay waa la imanaya markii laakiin la qaado lowgi swing lowgi markii la qaado okay lacag waxaan dhigana markaas 4 hour time frame kida bajishay macahid qaarkood waxa uu caantaas change of trendigi ba jahadiisa badashay laakiin choga waa just impulsive key correction key kala bedelashadeedii umbu ii sheegaya laakiin ima sheegay 4 hour time frame ka jahadiisa in la bedelay jahadiisa waxa ii sheegay markii chogan weyn uu dhaco oo 4 hour ka oo jahadiisa ee bedelanto markaas ayaan waxaan leeyahay okay waxa la qaaday lowgi swing lowgi waxaan sugayaa iskan wuxuu noqonayaa markaas swing high so inuu correction sameeyo haddana impulsive kala dhaco jahadii markaas waxay u soo bedeshay sell okay so marka dan suuq idin ku tuso marka
this is my favorite place because waa perfect scenario oo markasta dhicin laakiin uu fududa inaan si fiican idinku tuso. Okay, let's cut here. So suuqan maxaa u jeednaa marka 4 hour time frame ka marka aan ku jirno. Suuqan waxaa u jeednaa in uu dhacayo boss kor ah soo maaha. So inta maxaa ka samaysmay? Waxaa ka samaysmay in this case and higher high and higher low. Okay, so higher high markii la qaado oo liquidity daaniyada la qaaday, aniga waxaan sugayaa in jihadeeda bedelto. Marka ani si aan chog of 15 minute ka u arko ma ku jiri karo 4 hour ka. So waa inaan 15 minute ka tagaa. Let's say demanding aan sugayo inay lacagtan maybe daily time frame ka tagto somewhere here, maxaa la dhahay jihadiisa iyo wixiisa dhan. Yes, so hadda waxaan tagaynaa 15 minute marka 15 minute marka maxaa leenahay 15 minute waxaan leenahay okay waa la qaaday maxaa la dhahay iswiin haygo 15 minute ka in this case liquidity dan dhan waa la qaaday badanaa liquidity u badanta waa meelo corrective meeraan. So ani maxaan sugaa lacagtan ani waxay valid in noqonaysaa jog ahaan markii lowga la qaado. So ilaa lowgan oo 15 minute ka ah la qaado ani ma dhihi karo waxa weeyaan jog baa dhacay ama reversal baa dhacay ilaa hadartan continuation baan ku jirnaa. Okay, because suuq inta imaad haddana sii socon kara. So I don't know waa inuu lowga jabiyaa marka kow inuu qaybta koro jabiyo, tan labaad inuu qaybta hoose jabiyo. Markaas inta ayaan dhihi karaa waxaa dhacay maxaa la dhahay low. Taada kale markii uu dhaco jogga, okay, uusan u dhaco laba wax baa dhici kara. So maxaynu niri lowganeeto in uu jabin waayo lowga. Marka maxaa dhacayo before intuusan jabin waxaa samaysmaya lower high lower low kale. Okay, marka haddii especially kaneeto wax saan u jabinaya haddii uu liquidity qaado. Let's see. Okay, haddii uu wax saa camal intee meeshan ka dhacaan uu liquidity qaado oo uu jabiyo markaaseeto lowganeeto oo aniga ii ah jogga. Okay, markaas camal highganeeto aniga oo extreme-ka uma dhiganaya order block maxaa la sell limit-ka. Waxaan u dhigan karaa kan oo loogu waco dejiisana waa inta uusan jabinin lowgii ka horeeyay in uu samaysto gudihiisa lower low and lower high. So lugta wax jabinaysa waa tan ma aha. Haddii lugta wax jabinaysa ee liquidity soo qaaday waxay noqon kartaa point of maxaa la dhahay interest oo aad kasoo geli karto suuqa sell limit ka dhigan kartid. Haddii aysan liquidity qaadin iyadaa liquidity noqon karto oo markaas macnaheedu waxa waaye adiga waxaa ka raadsan kartaa maxaa la extreme-kaaga toos u abaaran kartaa to avoid maxaa risk macna lahayn. Okay, dad qaarka waxay kan I don't care meeshaan ka soo qaadana 1% qasaara laakiin 1% plus 1% wala 1% jaa waxa waa hada funding ku jirtid waa laga taqalusay. So lacagta marka maxay sameysay in this case waxay soo jabisay joggi وجيدا joggi ayay jabisay. Marka ani meeshan maxaan ka raadinaa waxa dhacday sidaan sheegay. So lugtaaneed wax ma jabinin, lugtaan ayaa wax jabisay. So in this case waxay noqon kartaa lugtaan liquidity ma qaaday, tan yes liquidity way qaaday. Okay, أنا مالها waa meelaha adiga laga rabo backtesting inaad samaysid euro aad dejiisana u samaysan waa almost 50% of the time ma ku dhahay wax oo detail oo aan soo ogaado laakiin se aad u dhacda. Okay, ani marka maxaa waa labadan midkood noqon kartaa. So haddii aan ani 15 minute ka rabo inaan ka soo galo waxaan sameynayo waa maxay waxaan first of all u dhigayaa maxaa la dhahay wax aad bahalkan premium iyo discount-ka waa idin tusi doonaa si aan u ogaado
ilaa iyo meesha aan ka sugayo. Okay, haddaan dho kan 50% ku jiraa, kana 50% ku jiraa, markii kan la gaaro ayaan toos waxaan u aadayaa 1 minute ama 5 minute asaga naftigiisa waxaan ka raadinayaa chog. So kan markii maxay weeyaan wuxuu ii noqon karaa order block markaas inta laga soo qaadanayo, kan wuxuu noqon karaa order block valid ah, valid labadooda soo ma. So marka inta waxa laga yaabaa inuu chog kale hadda ma aadi kari 1 minute because 2021 aan ku jiraa. laakiin kan naftiisa u jeedid wuxuu sameeyay kandalaha kaliya hadaan fiiriyo chog gudihiisa inuu sidaas ku dhaco ama si inuu kan karo soo doonto, labadaas way dhici kartaa. And that's it. So jeedaan marka waa kaas weeyaan. haddii uu suuqa sameeyo wax saan camal ah, markaas adiga waxaa kasoo qaadanaysaa seasonalka uu liquidity qaado. markaas isaga naftigiisa waxaa la sidigaysaa 1 minute-ka chog 1 minute iyo ama 5 minute kii markaas inta adiga aad backtesting ku samayso oo aad jeclaysatay kusoo qaadanaysaa. haddii kalena maxaa la dhahay riskiga aad ku qaadanaysaa. laakiin aan riskiga way haddaa cusubta kuguma waaniyo mar walba confirmation ku qaado oo chogganit aad u isticmaalo. time frame-ka markaas ku jirta mahani lower time frame walba tag si aad maarta isaga soo hubisid. So tan waa nooc min chog dhaco. chogga kalena dhacana xawaay midka caadiga ah, hayga la qaadayo soo noqonayo, lowgi la qaadayo maxaa la ka bacdina extreme kala tagayo soo dhacay. marka haddaa fiirisid especially haddaa ka timid market structure-ka kan suuqan muxuu tusayaa kan wax kale maana aanan ahayn wax anaga u naqaano double top. waxaa laga yaabaa order block oo extreme-ka inay soo taabato lacagtan wax yar kala koreeyaan. So market structure ahaan ama istaraatiijiyada hore ku soo shaqaysan jiray oo arday badan oo igu xiran ay ku shaqaysato ama ay ku shaqaysan jirtay. This is the maxaa dhahay double top waxa uu wacno kan waa head and shoulder oo jeeda wax kale ma aha. laakiin meesha aad ka qaadanaysid iyo habka u dhacayaan waxa ku fududaanaysa first of all inaad kala ogaatid labadooda kii dhacay maxay neenir hadii meesha liquidity ku samayso inta lugtan wax soo jibisay tan in laga qaadaa fudud, especially euro US dollar. GBP US dollar waxay u badan tahay xogaa inay qaadato extreme. So marka anaga badan waxaan dhihi jirnay double top ka fiican head and shoulder. Of course because kan waa kii extreme ka lacagaha badankood extreme ka soo qaataan. So marka inta baagan aadeyso si nadiif uma aadeyso, waxay u tagaysaa si maxaa la dhahay waxay u aadeysaa si corrective ah. Okay, oo corrective ah boom way soo dhacaysaa. That's it. وهذا شغل double top كي أن ليه جرني أو just لجو كلا محل ده قرحي. So سيدا أنت إذا كنت سنة أنت نسيدا سأيود عيسى ما كحدان سيجوني هايدين تسو و 4 hour كنا خنو 4 hour كم حنفيريننا ملك استا أو boss كدعو وحكذا عاي. Okay. So هذا العقد تاني تو كان حلو. That's why العقد haddii aad 4 hour-ka oo sell yahay oo buy aaday counter trade u qaadan kartaa. hadda 15 minute-ka ka soo galaysid obviously. Okay, so let's see hadda meeshaanito zone-kaanito waxaan tagaynaa 15 minute-ka waxaan fiirinaynaa meesha ama ka dhacay chog hayga ugu dambeeyay wax kana waxaan ka wadaa low ugu dambeeyay wax kana intuu ujeeda waa equal high waa liquidity sideeda ah. So liquidity ma la qaaday mise ma la qaadin? Yes waa la qaaday. Tamam. Okay, hal qaada maxay lowgeegi ma la qaaday oo muhiim ku ah because anisa ogal waxa rabaa in lowga la qaado. Yes waa la qaaday. Chogi waa dhacay. Lugtay jabisay. 15 minute chog. Lugtay jabisay. Lugtaan ma jabin suuq. Lugtaana jabisay. Okay, order lowgeegi markaas wuxuu noqonayaa lugtaaneeto lugtaasaytana maxay ku siisay entry-ga ay ku siisay asin nadiif ah uga soo qaadan lahayd. hadda waxaan fiirinaynaa markii lacagta buy-ga aadayso oo lacagta markii hadda buy-ga soo aadayso maxay samaysay oo waa very corrective because waa counter trade. That's why aan ku leeyahay counter trade sidiisoo nadiif ma waa struggle markii loo fiiriyo pro trade is the best. Like 4 hour kada pro trade ki sugaysid waxay ku qaadan kartaa maalqaadku isbuuc ama labo. So
maxay meesha lacagtaan inta samaysay liquidity ma qaaday yes waxtana liquidity way qaaday hayga ma qaaday yes haddaa fiirisid inta because chug waxaa kugu filan week yar oo jabiya uma baahnid maxaa la dhahay sida boska inuu boodiga jabiyo boska waa inuu boodiga jabiyo laakiin chugga waxaa kugu filan in yaroo jabisa ma jabisa lacagtaan ha ma soo noqotay ha haddaa si u fiirisid this whole thing ma itagtay extreme-ka because inta ma aysan sameynin maxaa la dhahaa lugtaan waa waxa jibisa laakiin liquidity ma qaada lugtaas jibisa may ani uma jeedi liquidity meeshaan soo ma jeedi so probably in a lower time from wax yaroo liquidity qaada laakiin liquidity ma ahan aan ii nadiif ah so taas marka maxay dhihi kartaa okay extreme-ka inay tagto extreme-ka iyadoon tagin lacagta sii baxday laakiin maxay samaysay ugu dambeyn ma kusoo noqotay meesha mise ma kusoo noqon yes bay kusoo noqotay ilaa ay tagto probably order blogi oo hadhow pro trade ahaan markay tagto aad adiga kasoo qaadan lahayd lacagtii joogay samaysay meeshaasaad kasoo qaadatay 4 hour-ka nagu celi the last one hadda markii haddana soo kala firayso ayaan fiirinaynaa asagana inay 15 minute-ka nagu celi 15 minute haddaa nagu celisid waxaa ujeedaa meeshaan eeto candle-kaaniyad waxay tagtay inta okay extreme-kaasito unmitigated-ka ahaa wax dhan waa inay macnayn doonaa insha Allah ayay tagtay markay tagtay maxay samaysay lacagtay hayga ma qaaday yes hayga way qaaday haygan waa la qaaday wali waxa lagu qaaday liquidity so hayga okay kale bis hayga ma qaaday ha loogina awa wax kana maxaa hadda sugaa lugtay wax jibisa lugtana wax jibisa liquidity ma qaaday yes weekyada meeshan u jeedo soo ma jeedid waa la qaaday so aniga waxaan aaminsanahay lacagtaan inta inay iga soo kala fireen karto kan actually saas igu dhig waayo kana u dhigaya laakiin maadaama week ka koraya asagana waa socotaya okay so lacagta waxaan sugayaa inay korkaas tagto oo ay active soo noqoto ay soo noqoto waxaan sameeyay okay lacagta meesha ma tagta ha liquidity kale sii qaaday probably candle-kan ka dambe adi liquidity kale sii qaaday laakiin extreme-kii ma aysan tagin waayo kii extreme-ka waa kaas meeshaas ku dhex jiro way soo kala firaysay that's why ay ku fiican tahay suuqa inaad sii fiirisid 1 minute-ka jogga waxaasito waayo haddii kale adaa liquidity noqonaya haddii inta kasoo qaadan lahayn oo valid inta kasoo qaadatid hadda inta kasoo qaadan lahayd oo iyada naftigeeda valid waa ay wad samayn kartaa laakiin haddaad 1 minute-ka sii aadi lahayd iyada naftigeeda ku sii tusi lahayd fiiri badana aniga markii 15 minute point of interest bal ii imaado 1 minute-ka emailahaasan kasii qaataa so kan jog ma dhacay yes waa dhacay maxaa kaloo dhacay order blogi ma soo qaadatay yes way soo qaadatay waa kaas order blog was soo qaadatay and then boom way soo dhacay so that's the whole concept of 15 minute jog 4 hour waa adiga direction-kaagu ku saxayaa so pro trade counter trade inaad tahay kii 4 hour-ka ka soo ogaanaysaa laakiin waxaad ka galaysaa 15 minute-ka as entry ahaan so marka aniga saasan u dhaqmaa 4 hour-kana waxa weeyaa kii jihadeeda 15 minute-kan waxa weeyaan kii ii sameynayay itusayay in maxaa lahaa suuqaaniinta uu ka yahay inta xataa haddaa fiirisid maxaa dhacay the same thing inta way soo jebisay jooga badana waa lagu warwareerayo I don't know why maxaa dhacayoo kale joogii wuxuu ka dhacay let's say here intan uu ka dhacay lacagta ma lagu soo noqonin probably waa la dardari doonaa iyadan hadhow markii lagu noqdo so that can happen hadda ujeeda meesha lacagtaasi marayso toosa loo dardari so joog fiican ma aysan sameyn tan 15 minute-ka aad ku gashay right which can happen of course away it was away waa kana
candle wax yar uu soo galay laakiin ma imaanin maxaa la dhahaa order blogan kusoo extreme ka ahaa toosana loo soo burburiyay okay inta hadana ma dhacay jog waa u jidaan intuu ka dhacay jog waa ka dhacay extreme kii ma la tagay yes waa kana maxaa la dhahaa candle hashan waxaan halug la ku jibisay so extreme order blog wax kaas so meesha seta aado way baxday hadii internet jog ma sameeyay maantana waxa ku jiraysa jog ma sameeyay ma sameeyay okay inta maxay sameysay this can be as well inay tan dhahdo liquidity qaaday tariid uu yahay kii jog sameeyay away nadiifki haylo jog uu dhacay waxa la soo qaata bahalki kanito laakiin soo ujeeda isaga naftiis banaanka waa loo bixi waxaan waa waxyaalaha suuqa marka ku jirtid uu kugu sameyn karo it's not always perfect laakiin waa fahanteena I hope ina fahanteen maxaa la dhahay concept-ka ah jog iyo bahalkigi then suuq uu dhac hadana internet jog ma sameeyo fiir had inta wax oo aan soo tusay 1 2 3 4 5 midkan oo ay carartay lacagta iyo midkan the same thing oo iyadana ay carartay bay ilaa hadda ii muuqda oo aanan jog sameeyay inta kala jogay sameeyeen inta naftigeedu waa u jeedaa maxay sameysay waxa la qaaday maxaa dhahay loogi iyo koo waxa la qaaday high kadib loogi la qaaday order blog la tagay waa la soo qaaday hadana inta markay silkaan waxa ku xirnaa 15 minutes ka tagtay idana maxaa dhacay high ma la qaaday yes high waa la qaaday loogi ma la qaaday yes mid qaldana isticmaalayaa laakiin loogi ma la qaaday yes waa loogi ma la qaaday yes waa la qaaday lacagta ma soo noqotay kadaali ka soo noqonaysa hadda soo noqonaysa so maanta dhan waxa ku jiraysa jog ma la sameeyay waa la sameeyay ma la soo noqday waa la soo noqday ma la sii dhaqaaqay waa la soo dhaqaaqay so jog wuxuu ku taraay maxaa waay jog wuxuu ku taraay waxa waay confirmation entry wuxuu ka celinayaa riskiga aad galaysid hadii aad qaadanaysid risk entry-ga hadaa ku qaadanaysid 50% of the time waxa kaaga dhacay SL waayo maxaa keenay waxa keenaya because liquidity noqon karta adimo hadda adin liquidity noqonaysa adoo waxa dhan ku saxanya lacagta still SL kaaga dhici karta waayo dadka naftooda maxaa la dhahay suuqa wado waa oghiin meelay wax ka ugaarsanaya they know how many contracts meesha isku jirto waxa la waxa dhan ku saxayin laakiin contract badan millions of dollars or maybe billions inay ku jirto oo halmantii fuck la dhaho la soo tuurto ka bacdina la soo dhaco taasoo lagu sameyn kara like hadafka maxaa waay adiga most of the probability na ku shaqeeyo waxaan ku shaqeynayaan 80% ama 90% is a good maxaa la dhahay thing ina fahantid oo confirmation ka waxa ku qaadatay hadii lagu celin is part of the game you don't control so marka intaasan ku ekeenay video wax yar waa yara dheeraaday laakiin insha Allah waa inuu next video isagana waxaan ka hadli doonaa multi time frame ka muhiimada leeyihiin billahi tawfiiq